weli ma aragtay dad murmaayo qof inta isdaji la dhaha isdajiye weli ma arag isdaji dadka waxayba ka qaadaan xanaaq adina madaxaaga wax kala ka dhax socdo markuu warkii dhameeyo meesha maraysa uga bilaabay jooji waxa maskaxdaada ka dhax socdo waxaan rabaa inay is weydiisiin dadka in loo naxariisto patient care la sameeyo dadka in loo tababaro muhiimadda ku jirta maxaa waaye saddex muhiimad oo asaasi ah ku jirta daraasaadka isbitaalada ay sameeyaan annaga isbitaalada Soomaaliya ku yaal culayska haysta darteed ma waqti badan ma geliyaan inay daraaseeyaan shaqooyinka ay qabtaan oo cilmi baaris ay ka daawacaan laakiin isbitaalada caalamka way qabtaan clinical negligence ka dhaca qofka clinical negligence uu tusaale waxa kamid ah qof daawo qalad la siiyo kale tusaale waa qaladaadkaas waxay ka yimaadaan 80% communication failure waxa waaye dadka oo aad si fiican ula hadlin ay ka yimaadaan ma ka yimaadaan qalad ka dhaco dhakhtarka ama nurseska ka dhaco kama yimaadaan waxay ka yimaadaan sida ula hadasho ee qofka customer-ka saa ula hadasho 71 dadka isbitaalka ka tago isbitaalka waxay ku qiimeeyaan daawadii ma ku raysteen kuma qiimeeyaan ma qiimeeyaan dhakhtarkii ay sheeg dhakhtar specialist ma aha nurseska xirfadlo ma aha ma qiimeeyaan waxay qiimeeyaan sida loola dhaqmo qiimeeyaan waxaa la yiraahdaa marka hadii la isbarbar dhigo isbitaal shaqaalihiisa ay naxariis badan yihiin laakiin ay aqoon yar yihiin hadii la barbar dhigo isbitaal shaqaalihiisa ay aqoon fiican yihiin laakiin ay naxariis daran yihiin dadka 171 waxay dooran doonaan ka shaqaalihiisa ay naxariis badan yihiin sidoo kale negative experience-ga wuxuu gudbaa 103 laab uu ka badan yahay positive experience soo qof ay yimid patient سؤالك ودي سفي عنا وجواب قف كل أم الشيء سؤالك ودي وجواب ويسد سدح قفو كل شيء أرنت المكور خطان ضدك وحيفا فيان negative experience يفا فيان قفك أو نيرسسك أم فرمشيستها قفك بكانك عن سفي عن أولاد نقمين بكانك قفك اسمه اسمه قال قلت كاسوحو هيستا قفك استوديك فر أردقان كشقية وحو هيستا اسبتالك دان ويفا sida darteed cabashooyinka magaalada ka jira hadii ay dhageysid 1200 ku dhawaada digfeer ka shaqeysa hal qof aa galay waxa uu eedeysan 2000 qof aa uu eedeysan soo inaa ka fikirtid sidoo kale saameynta ay dadka ku yeelanayso Disney waxa lagu amaanaa sida ay ugu fiican tahay dadka customer-keeda si ugu fiican qofna cabasho kama qabo waqtiga uu sugayo Disney marka aad goosato tigidhka iyo marka aad galayso وانا ميل لو عيار اوغاو waxa u dhaxaysay 60 daqiiqo u dhaxaysay laakiin qofka intuu soo gelin ka hor iridda waxay ku qoran tahay ogaaw waxa sugi doontaa adeega 60 daqiiqo sugi doontaa qof marka oo waiting meesha dadka lagu soo isbitaalka fadhiya adoo nurse ama pharmacist ama door kasto aan leedahay oo ay sugista dib ku tahay hadaa u sheegta hal saac laba saac kadib aan natiijada helay waxa xalisa cabasho uu qofka ka qabilaha isbitaalka dhan uu ka qabila information ka soo ogta qofka bukaankaana waa u baahan yahay walwaliina ku haysa anan ina u sheegto caqabada ugu weyn oo qofka ka haysata maxaa waa caqabadaas maxaa isleedahay waa ogtahay baaritaankan 2 saac u qaata jaamka isbitaalka jira darteed 3 saac u qaada kara qofka hadaa u sheegi lahayd meelaha isku soo wareegi lahaa 3 saac kadib uu soo laabo lahaa adeeg isbitaalkana waa ku qancila laakiin information kaas waa ka haysata ma u sheegaysto inaan cabashadayna xal lahayd macnaaniga ma aha laakiin waxaan rabaa inaa ogaatiin muhiimadda ay leedahay qofka oo u sheegto adeega waqtiga uu qaadanayo erayada isticmaal quraanka kulligeen dad quraanka waa soo wada baranay meeqa kal aayada ku jirto oo kelmad wanaagsan ka hadasho meeqa ku jirto قول معروف ومغفرة وخير من صدقة صدقة أساك غير بدن هذا الكون أكسن كلمة في عن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة كلمة وانا أكسن جيد ويني هذا قرآن كأد وحد وهنا أحسن قولا of course إن erayada هذا مركب وحي سامين توصف عشان erayada استعمال شو سيد قفك وقنعه isbitaal qanaacada bisma saameeyay sidoo kale waxay saameeysaa sida uu aqbali lahaa
daawada loo qoro si uu qaadala cabashada see loo xaliyaa protocolkana la raacaa kow listen qofka dhageyso hadalka ha ka dhex gelin ha ka kala jarin gabadhii ustaadadii hadaayo waxay ii sheegtay inay supervisorkii ay dhahdo qofka isbarto procedure fiican waaye laakiin waxaa ka horeeya intaada isbarin ka hor horta inaa asaga dhageysid cabashada uu qaba dhageyso kadib u sheeg inaad tahay supervisorkii oo cabashadiisa xali lahaa inaad tahay see qofka loo dhageystaa dhageyso macnaheedu waxaa waaye hadalka ha ka dhex geli bas waaye aan dhowr jeer aan sheegay dadka markay wax dhageysanayaan faham uma dhageystaan jawaabay diyaarsadaan wuxuu ku dhihi lahaa maxaa uga jawaabi lahaada madaxaaga dhanka dhex socoto sidaa darteed waxa uu ku dhahay waxaa ka fahamtay ma jiraan sheeko waxaa jirta laga sheekay wiilaa wuxuu rabay dabaq gabaray guri isla degan yihiin dabaq waaye oo wuxuu rabay inuu feero u doonto intuu jaranjarada soo fuulayo wuxuu isku sheegay inay u diidi doonto feerada dan markay u diidana uu dhihi doono wax feeraha oo aan kaa rabo ma lehe bax inuu dhihi doono isagoo meeshaas maraayo irida garaaca gabadhiyaa ka furtay wax feeraha oo aan kaa rabo ma lehe bax u dhahay sheeka runoo dhacdo qofka inta uu kula hadlaayo adina madaxaaga wax kalaa ka dhex socdo markuu warkii dhameeyo meeshaa maraysaa uga bilaabay dagaalkana waxaasaa keena jooji waxaa maskaxdaada ka dhex socdo asaga dhageyso listen waa qodobka koowaad ee lagu xaliyo cabashada lagu xaliyo labo acknowledge macnaheedu waxaa waaye qofka waxa uu dareemayo u qir ma loo imaan waa dareemaa inaan lidiin imaan dhibka ay leedahay waa dareemaa inuu kaasoo dahaa dhibka ay leedahay saas u sheeg macnaha adan arrinkaas waxay qofka inaad fahamsan tahay xaaladiisa aad la socoto aad ka warqabto waxay ka yaraynaya stress waxa uu la cabanayana cabsi aheede dhibaato caafimaad maba ahayn ma u badnayn cabsi wax soo socdo uu ka qabo waaye ee maahan waxa hadda haysta maaha saddex clarify qofka cabashadii kuu sheegay dan ugu celi hal sentence waxa ugu badan oo aad ka cabanay maxaa waaye ma inaa wax badan sugaysaya ma inaa lagu imaanaa ma inaan lagu jawaabinaa ma inaan qofki fiicnaana hal wax bas weydii oo aad ka dhex fahantay cabashadiisa inay asal u tahay cabashadaadu sow intaas maahan intaas samee and then engage waxa aad ku xalinaya u sheeg waxaad tiraahdaa waxaan sameynaya x y hebel iyo hebel aan sameynaa intaasoo daqiiqo kadib aanan kuu qabanaa shaqadaas saas u sheeg modelkaas waxaa la yidhaahdaa de-escalation framework aa la dhahaa lays aa loo soo gaabiyaa waa dhageyso u qir qofka dareenkiisa waxaad siisaa u cadday inaad fahamtay u cadday and then xalkii aa u heli kartay si qof oo bukaana familkiisa oo xanaaqsanaa ku yimid afar waxyaabood oo aad sameyn kartaa jirto kow markuu qofku ugu xanaaqo eray aan fiicnayn ku dhaho kow horta adiga isdeji sababtoo adiga haddaada isdejin wax aad deji karta male kow horta naftaada ka bilow calm yourself adi isdeji see laisku dejiyaa adinkaa iga aqoon badan kow qofka markuu xanaaqo maxaa dhaco garaaca wadnihiisa kor u kacosow aada u neefsadaa saas ma idinla tahay then nafsigaas degdegaa yaray sida inaa yarayso isku day xanaaq waa kaa bi'i doonaa ma faham markaasaan sheegaya labo qofka waxaa siisaa joyce marnaha isticmaalin kelmadda isdeji la dhalo weli ma aragtay dad murmaayo qof inta isdeji la dhaha isdejiye weli ma aragtay isdeji dadka waxayba ka qaadaan xanaaq adduunyada dhan waaye beri subax tijaabi qof xanaaqsan intuu timaadid isdeji dheh car haddow ma degi doono sidaa darteed waxaa la dhahaa ma jira erey uga fiican in qof la kiciyo isdeji saalo kasoo qaad qofaa noo soo gala askari hadda intuu soo istaago wuxuu dhahay isdejiya wax dhiba ma jiraan saas oo dhan askari intuu soo istaagay isdejiya wax dhiba ma jiraan xaaladdu waa caadi hawelwelinina saasuna dheh markaasaan bilaabeynaa inaan kala carab albaabkii aad ka bixi haddaa ka hartaba maba ka haraysta
soo qofna isdeji horta ha ku dejinin see laakiin ku deji kartaa qofka laba choice inta maan ku wada hadalnaa mase banaankaan u baxnaa dheh labadaas choice markuu meel geesa kula istaago u fiirso qayla dhan ma jirto ma faham inuu qayliyo maxaa ku qasbaya inuu attentionkaaga hela bas uu rabo soo inta maan ku wada hadalnaa mase banaankaan u baxnaa dheh qof customer ahaa marnaha la doodin ayadoo dadka kale ay maqlaayaan arrinaa u joogaa jirto emergency ka dhacday agaasimaha waa u sheegay maalin ayadoo caadi oo dadka wax cabasho qaba aan laakiin aanin odayaha qayliyey waxaan wuxuu dhahay waxay noo qabanayaan male meeqa jeer ama saas u hadlay 5 daqiiqo kadib 4 qof oo kale cabanaysa hadduu hal qof cabto waraanay lafteeda run waay wax badan aan sugayaan isleen ninkaan waa saxan anigu wax badan aan sugay anina si fiican leelama hadlin 10 cabasho imaanay cabashada waa kasii daray haddii qofka aa ugu jawaabto dadka hortiisa ka soo qaad waxaa tiri maxaa isku waalay adiga maxaa isla waalay dadkii meesha joogo oo dhan bukaanadii qofkii la safanayaan waxay ku leeyihiin maxaa isla waalay maxay tahay qofkii ku garabiyay adigii dadkii aan marka dagaal oo group aadan ku talagelin oo adoo la dagaalkii dhex taaganaysa arag soo marka dadkii bukaanadii kale oo maqlaayo marnaha xallinin arrin bukaan uu leeyahay xallinin escalation waxa weeye qodobka afraad haddii aad u dareento inaad xalli karin qofka kaa sarreeya u gudbi tusaale bukaana xanaaqay inaan wax loo qaban inuu arko inuu iska baxo raba waan ogtahay duruufta uu ku jiro hadduu baxo halis uu galaa isbitaalka kale kama gaaro waa dareensan tahay soo dhakhtarka gaarsii u sheeg asaga sidaa ku celin karto ku celi haddii ammaankaaga u baqado qofka amniga ka shaqeeya wax markaas ma fahamto macnaha jidkaasaa la maraa haddii qof dhib badan uu ku yimaado body language-ka dadka markaa la hadlay Mahrabian wuxuu 67 dunida waxay ogeyd warkan 67 boqolkii 55 dadka sidaa ula hadasho waxay ka timaadaa sida jirkaaga uu yahay gacmaha saa u isticmaashid indhaha saa ka dhigtid wajiga saa ka dhigtid gabdhaha kuma sii jiraan indhaha ay isku dagaalaanba message indhaha laga diray gabdho isku dagaala dhowr jeer so 55 boqolkii qofka saa ula hadasho tusaale qof bukaanaan rabay inaan waco mudane kaalay aan mudane kaalay ma ixtiraamtay qofkaas ereyga isticmaasho laakiin muxuu ahaa mudane waa erey fiican laakiin mudane waxaa ka xoog badan inaa farto inaa u waado ka xoog badan ama saana dhahdo tan Soomaalida ma dhibsadaan wax caadi la taagtay saan kaliya signalkan kaliya eeyaha fahmo anaga ma dhaqanay filmaanta ka fiiri mar walba ay wacayaan saanay dhahayaan hore ka soo orda bini'aadamka ma loogu talagelin inaan bini'aadamka u isticmaalno xagee ka keen noon kana qof ka jawaabi karo arrintaas inuu si jirna umaleena exactly goystii ayaga ay yelaha jiray boqolkii 38 wuxuu ka yimaadaa toonka waxa waaye codkaaga ma dheeraa ama waa gaabnaa boqolkii 7 bas waxay ka timaadaa ereyada isticmaasho soo inaad saas u ogaatiin jeclaalaha dadka si u akhristaan dhaqan hadalka communication saa ula hadasho si u akhristaan haddii codkaaga aad kor u qaado oo qofka ku qayliso difaac u galaa qof waxna kuma sheegayo haddii qayladaan kadib tilaabada ku xigto u sii diyaar garooba codkaaga kor u qaaday darteed bas sababta codka kor loogu qaado dadka ixtiraam darro uga arkaan maxaa waaye ama canaana ka wada ama qofka waxa ka aaminsan tahay inuu dhagool yahay oo uu ku maqlayna ka aaminsan dhagoolna ma soo asagana inuu iska ka difaaco ay keeni doontaa falaad monotonka waxa la dhaho wiil diyaarad ma raacday qolada diyaaradaha say u hadlaan diyaaradan saas camal waxa mar walba aan diyaarad raaco pilot ka hadlo ama gabdhaha ka shaqeeya ay hadlaan qofka igu xigaan waxaan weydiiyaa maxay dhahdeen qofku sheegi kara ma jiro wax sheegay ma dhacdo wili ma dareen wax aad ka fahmay ma jiraan sababta maxaa waaye asagoo aan afka kala qaadin uu hadlaa qofka afka ma kala qaadayo waana hadlaa
warka ka soo baxayo monotone lahaa ixtiraam daraa loo yaqaanaa inuu yahay soo qof markaa bukaana la hadlaysa saw la hadlay procedure uu ku weydiiyey saalax shaybaarka xaguu ku yaalaa ku dhahay 5 sano la soo dhaafaa shaybaar tilmaamaysa adiga waa kula fudud halkaas ka leexsaasaa dhahay that's the monotone saasaa laga wadaa macnaha haddii qofka aad si fiican ugu tilmaami karin inaad u tilmaaminaa fiican sababta waa sii dhumaa bas wax uu ka faa'iidayo ma jiro haddii aad hadalka boobsiisana aad hadalka u boobsiis markaa qofka la hadlaysa macnaheedu maxaa waaye inaadan qofka rabin inaad u dulqaado in dulqaad badan aad u heenay muujinay cambaar dhan aad u aamustay qofki walwal waxaa gelaya ma dhima rabtaa ah saal qofaa ku yimid baaritaankayga ma soo baxuu ku dhahay waa u aamustay maxaa soo wadaa uu qofka ka walwalsan yahay waxaan aan la sheegi karin oo aa iga ogaat maxay yihiina aa ku jirto qofka ku jirto qofkaana naftiisa u walwalsan yahay adina waxay kaa tahay ama moogi isla weynina idin ma dhigi karo waxaan dhahay ma aqaan qofka u jawaab dhaqsana ugu jawaab waxaa ku soo hara body language inta ku jirta adeega caawinta bukaanada marna gacmahaaga xiri gacmo xiris maxaa laga wadaa saan u istaago saan yaa u istaago booska waxaa kaloo u istaaga bodyguard dadka qof markuu waardiinay sababta ma taqaanaa ha ii soo dhowaan waayo waa isdifaaca ha ii soo dhowaan saas maa rabta adiga qofka inuu kula hadlaa rabti oo wax ku weydiiyo caawinaad ku weydiisto soo marna ha xirin gacmahaaga intaa adeeg ku dhex jirto waa laga yaabaa inaa xirto oo aad uma filayo dadka dhan gacmahaaga ha xirin inaa inta galabta dhoo ay joojiyaan rajadaas badan iguma jiro laakiin hal eray idin sheega dadka isbitaalka yimaado waxaa laga yaabaa qaar inaa ka aaminsan tahay kulligood dadaan waxba aqoon inay yihiin qaar badanoo waxaa jiri karo isbitaallo adduunyada kasoo shaqeeyay isbitaallo lasoo macaamilayay kuwa dadka sida dadka loola dhaqmo baraa kamid ah already marka aduu xag taagan oo gacmahaaga isku dhex jiraan uu ku arko waa ku fahmaa xirfad inaadan shaqadan ku imaan waa ku fahmaa ma fahmi macna oo si kale aa ku timid u fahmaa ninaan saaxiibnahay hadda ka hor isbitaalka lagu qalay marka canola la geliyaa waa isgedina hadba canoolka waa ka baxaa gabadha marka meesha waa la siixiyey gabadha nursing ku qorneed aan dhowr jeer u wacnay kaalay canoolka geli markii labaadaan wacnay qofkii wacaan u ahaa waxay dhahday bukaankii u timid waxay dhahday inaan horta dhib kugu qabno ma ogta serious inaan dhib kugu qabno canoolkaan ilaalso mar dambana ha wada ka bax soo sasma hal su'aalaan weydiiyey gabadhii waxaan ku dhahay jaamacadee ka baxda sababta jaamacadee ka baxda aan u dhahay mataqaana waxaan rabay inaan ogaado jaamacadda bartay gabadhaan sida canool loo suro oo aan barin sida dadka loola dhaqmo jaamacaddaasaan rabay inaan ogaado soo marka sida dadka ula dhaqanto dad yaqaanaa jiro waxayna kugu xukumi doonaan professionalismkaaga inuu xun yahay telefonka sida loola macaamilo isbitaalka telefono laga soo waca ma leeyahay qayba oo jiifka telefono laga soo wacu leeyahay ICU ha telefon ay leeyihiin soo saas yaa ka shaqeeya telefonadaas qof ma joogaa ka shaqeeya gacanta telefonka protocol la isticmaalaa jiro sida telefonka loola hadlo 3 jeer markuu dhaco qabo ugu yaraan 3 jeer ka badan iyo sadhici laan weydii waxa uu rabo sababta ma taqaanaa meelaha cabashada dadka ugu badan ay ka qabaan sida telefonada loogu hadlo waayo markii laga soo tago emergency-ga waana worldwide adduunyada dhan wax ka jiro waayo training body away waa qofka inaad la hadasho adoo ka sii jeedo qofkii bukaanka intuu taagan yahay anigana intaan u jeedaa inaan u jawaabaan rabaa macnaheedu maxaa waaye
sheek warkii waa dhamaaday waay sheekada intaasi ku eg tahay waa tegi rabaa jooji warka saasaa ka wada so inaad la socotid sida aad u dhaqanto iyo jirkaaga sida aad ka dhigtid in uu muhiim yahay Mayo Clinic ma maqashay weli isbitaalka dunida ugu fiican kee waay of course Erdogan kadib isbitaalka dunida ugu fiican kee waay waa Mayo Clinic Erdogan kadib ana kaalinta labaad yaa ku jiro kaalinta labaad waxaa ku jiro Mayo Clinic ku jiro Mayo Clinic waxay isticmaalaan model la yiraahdo IDIT macnaheedu maxaa waaye waa acknowledge, introduce, duration, explanation and thank you qofka markuu ku yimaado inuu qofku ku yimid dareensi qofka aad tahay u sheeg adeega uu rabo waqtiga uu qaadanayo u sheeg and then markii uu baxayana u sharax daawada markii uu baxayana waxaa dhahdaa thank you arrinkaas maxay caawisay hal sano gudaheed cabashadii Mayo Clinic dadka ay ka qabeen waxay hoos u dhacday 31% hoos u dhacday so waxaan rajaynayaa inaa